Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada youtube-keena Somali Youth Scholars. Waxaan rabaa saaka inaan idinla wadaago akhbaar soo kordhay joojinta gelitaanka dalka Mareykanka xanibaadani oo lagu soo oogay ilaa iyo 10 iyo dhowr wadan dabcan ay Soomaali ka mid tahay. Videoga inaan sharaxadiisa usii gudbin waxaan rabaa inaan idinla wadaago in 99% fiisooyinkii Soomaalida dalka Mareykanka ku gali jireen in wax xanibaad ah aysan saarneyn. Marka midaas niyada ku haya videogan qaybtiisa ugu dambeysa fiisooyinka noocyada yihiin aan inshallah aan ku wada arki doono. Hadda waxaan rabaa inaan idinla wadaago sababta xanibaadani noola saaray maxay tahay bal inaan isla adagno. Marka wadan badan ku jiro ma raba inaan dhamaantooda wada fiiri, waxaan rabaa in يعني waxa anaga noqosay Soomaaliland sida u nahnay. Yes, waa qaybtani anaga qaybta noqosayso Soomaaliya ay ku qoran tahay inshallah. warkaan hadda u baahantiin waa White House-ka website-kooda inshallah. qaybta linkiga hoosan soo dhigi doona hadda aragteen akhriska meesha ka akhrisan kartaa. marka sawaha ay anaga noogu diideen inaan dalka Mareykanka galno bal waxay dhaheen ayaa rabaa inaan isla yar eegno. waxay dhaheen yani Soomaaliya waxaa ka maqan maamul dhexe oo karto leh inuu bixiyo yani baasaboorada dokumentiyada ma fahantay. maanta dawlad yani maamul dhexe yani oo karto leh inuu hawshan qabta aysan jirin. marka qodob badan ay sheegeen ma raba inaan kulligood halaal u akhriyo, waan soo yargaabinahay. sidoo kale waxay dhaheen meeshan ay ku sheegeen in waxay dhaheen wadamada kale waxa ugu duwanahay jira yani oo ay dhaheen Soomaaliya sheyga wadamada kale ugu duwanahay oo yani maanta sababay in listigan la geliyo ayaa wuxuu yahay dhaheen maanta dawladda Soomaaliya awood uma lahan inay maamusho dhamaan wadankeeda. hadalkaas way ku saxayeen. hadda si kale idinku dhiga waxay ka wadaan yani maanta dawladda Soomaaliya oo yani Xasan Sheekh madaxweynaha u yahay maanta awood uma lahan inay baxdo Jubaland iyo Puntland iyo state-yada inay tagto ay maamusho awood uma lahan yani wayna ku saxayeen 100% yani hadalka ay meeshan say u sheegeen. marka qodobkaasna ku dareen marka deemaan dawladeena ay ahaan leh dawlad weyn oo hal meel laga maamulo yani maanta dhibaatada kuma jirneen. sidoo kale waxay dhaheen Soomaaliya waxaan u aqoonsan inay tahay meel ay argagixisada ay haraad yani har ay ka dhigtaan ay ku nastaan ay degaan ma fahantay ay dhaheen. sidoo kale waxay dhaheen Soomaaliya waa yani meel qofkii raba inuu yani ku biiro argagixiso inuu meel uu tago yani hadduu qofka inuu argagixiso ku biiro meel uu tago in ay tahay Soomaaliya ay sidoo kale ay ku sheegeen. marka ilaa wadanka wadan nooga dhigo. marka waxay dhaheen ugu dambeys meeshani yani fiisooyinka soo galootiga iyo kuwaan soo galootiga dhammaan Soomaali qofkii ma heli doono oo waa laga xadiday. soo qaybtan waa qaybtii aan idin dhahay dhammaan yani 99% fiisooyinkii Soomaalida ay qaadanayso wax xanibaad lama saarin yani ay ku imaan jireen dalka Mareykanka wax xanibaad lama saarin. marka qaybtan ay ugu wada hadleen fiisooyinkaas kalimaani qodobo kale ay ku dareen hata. marka waa isla wada eegaynaa dhamaan. waxay dhaheen meeshani section 4 kan waxay dhaheen yani waa yani hadda af Soomaali idinku uu sheegay waxa waaye waa baaxada iyo fulinta joojinta iyo xadidaada. marka xadidaadani waxyaabaha laga joojiyay aragna marka fiisooyinka Soomaalida 99% ay ku imaadaan dalka Mareykanka waa fiisooyinkan. marka sidoo kale waxay dhahaan yani immediate family immigrants yani immediate family immigrants. marka fiisooyinkan waxay u kala baxaan waa IR1 CR1 CR2 IR5 waa sidaas. IR1ka IR2ga IR5ga IR5ka even CR1ka CR2ga dhamaantood waa fiisooyin yani isku wada dhow. haddii aan fiiriyo IR1ka waa fiisaha yani ka soo qad waxaa tahay xaas yani in laga tahay gabar ayaa qabtaa waxay ku joogtaa Soomaaliya waxaa rabtaa inaad soo dacwootid soo fiisa u xareynaysid
waa oo blagreenist si ay u imaato dalka Mareykanka ayaa ah IR1. So shuruuda waxay tahay inaa adiga tahay qof wadani oo u dhashay dalka Mareykanka oo passport Mareykan haysto. Hadaa passport Mareykan haysatid wadani aad tahay oo xaaskaaga ay joogto dalka Mareykan ee dalka Soomaaliya oo u soo dacwini kartaa oo fiisahani IR1 oo u dalbi kartaa oo adiga xanibaadani travel bankan kuma saama. Waa midaas. Midda labaad IR2 asleegno IR2 waa ilmo aan qaan-gaarin, yani caruurtaada ka yar da'dooda aysan gaarin, yani 21 da'dooda wixii ka yar caruurtaada sidoo kaleeto waa u soo dacwooni kartaa. Yani waa inaa laakiin ahaata hooyo mise aabo haysto passport dhalasha Mareykanka ah. Hadaa haysadid caruurtaada u soo dacwooni kartaa. Caruurtaada inay waxaa shardi ah inay da'dooda ay ka yar tahay 21 sano ay yihiin caruur. So midaas waa IR1 iyo IR2. IR5 sidoo kaleeto waxaa rabtaa inaa u soo dacwoto hooyadaada mise aabahaaga oo Soomaali joogo, adigana waxaa tahay wadani oo passport Mareykan haysto. Sidoo kaleeto visa waa u dalbi kartaa waa u soo dacwooni kartaa hooyadaada mise aabahaaga oo Soomaali ka joogo. Fiisooyinkaasi way fasaxan yihiin. Sidoo kaleeto IR1ka CR1ka iyo CR2ka waxay la mid yihiin IR1ka iyo IR2 waxay la mid yihiin waxay la mid yihiin IR1ka IR2. Yani waxaa dhihi karaa CR1ka CR2 hadaa si gaaban idin soo gaabiyo, yani lamaanaha cusub, yani guurka ka yar 2 sano. Guurka ka yar 2 sano dadka isku dacwoonayo yani CR1ka iyo CR2. So fiisooyinkani dhammaan haddii lagu soo dacwoonayo fiisahaagan uu yahay noocyadani, wax travel baan kuma saameyn doono oo waad helaysaa fiisahaaga oo waad baxaysaa. Sidoo kaleeto waxaa jiro haddii adiga cunug aad dhalin laakiin aad soo korsatay, sidoo kaleeto fiisooyinkani way baxayna adoptions. Fiisooyinkani waa lagu xareeni karaa oo Mareykan sidaas waa ku tagi kartaa. Qodobyada kale oo hadda ay sheegaan waxay tahay haddii aad haysatid green card haddadaani Mareykanka waad ka bixi kartaa, waa ku safri kartaa, yani wax problem kuma dhalanayo. Yani ebil koreed waxay ahayd waagii hore markuu travel bank soo dejinay waxay ahayd even dadka green card ka haysto wuxuu dhahay dalka Mareykanka ma soo gali karaan. So now haddii residence permit ay haysatid, yani meeshaan ku qoranta any lawful permanent resident of the United States, haddii sharci degnaasho dalkaas Mareykanka ah kaystid, sharci degnaasho waxaa waa green card, haddii aad kaystid kuma saameynayso adiga arrinkani. Sidoo kaleeto waxyaabaha kale ay ku sheegeen Soomaali ahaan haddaan ahnay oo yani fiisa aan ku heli karnaa waxay tahay Soomaaliya tahay laakiin 2 passport haysta. Passport Soomaali haysta iyo passport Kenyaati haysta. Passport Soomaaliya dabcan xadidaadii travel bank ayaa saaran, laakiin Kenyaatiga passportkooda wax xadidaada ma saarno oo sidaas awgeeda waad ku helaysaa fiisaha dalka Mareykanka oo waa ku safri kartaa. So dadka dhalasho 2 wadan ka haysto, Soomaaliya wadanka 2 passport isku haysto, wax travel bank ma saameyn kuma yeelan doono. Green card dadka sidoo kale wax saameyn kuma yeelan doono. Fiisooyinkani hoos ku soo xule wax problem kuma yeelan doonaan. Sidoo kaleeto dadka u shaqeeyo dowladda diplomatic passport diplomatic haysta, mesela dowladda Soomaaliya u shaqeysa passport diplomatic haysta, waxa waaye adiga sidoo kaleeto kuma saameynayso. Sidoo kaleeto waxay dhaheen dadka u shaqeeyo UN-ka wax igana saameyn kuma yeelan Soomaaliya tahay UN-ka u shaqeysa, sidoo kaleeto wax saameyn kuma yeelan doonto. Sidoo kaleeto Soomaaliya tahay waxaa rabtaa inaad ka qayb gashida
tartanka Olympic soo socdo oo Mareykanka lagu qaban doono. So sports يعني no Olympic يعني مثلا FIFA World Cup 2026 lagu qaban doono Mareykanka aragtay inay ka qayb gashay sidoo kale wax saameyn kuma yeelan doonto. Marka qodobyadaani waaye qodobyada wax saameynta aysan ku yeelan doonin. Marka 99% markii la eego fiisooyinkii dhammaan Soomaalida ay dalka Mareykanka ku tagi jireen. So marka waxa rabaa inaan idin dulmaro dadka yani saameysay travel ban yani Soomaalihan dad noocay ay saameynaysaa, fiisooyin noocay ay saameynaysaa. Fiisooyinka ay ku magacaan K1ka fiancé visa, nafahante engagement fiisooyinka noocaas K1ka saameyn ay yeelanaysaa. DV lotteryga saameyn ay ku yeelanaysaa travel bankani. F2A fiisooyinka Fka waxay dhahan yani waa second preference visa, yani waxa waaye mesela tusaale ahaan waxa tahay aabe oo haysto aabo dalka Mareykanka u dhashay oo passport haysto citizen mise hooyo citizen oo passport Mareykan haysto oo rabta inay u dacwooto caruurteeda aan weli guursanin laakiin da'dooda ay ka weyn tahay 21 sano. Haddii 21 sano da'deeda ay ka weyn tahay oo aan weli guursanin dadka noocaas waxay dhahan fiisooyinkooda waxay dhahan F1. So haddii aad ku jirto gruubyadani F-kani saameyn ayay sidoo kale travel bankan ay kugu leedahay. Marka dhammaan waxa waaye inta ugu muhiimsan waa isla wada eegna maleynaa inay wax kale jiraan. Marka sidoo kale yes waxa idin la wadaago marka goormuu bilaabmi doona travel bankani wuxuu bilaabmi doonaa effective date-ka June bishaan hadda ku jirna 9keeda 2025. So fiisa ma haysataa fiisooyinka kor ku soo xisa hadaysan wax ka baxsan haddii ay tahay intii June 9keeda la gaarin ka hor inaad Mareykanka tagto isku day. Marka waa sidaas wax kale aan dhaho ma jiro. Marka videogan intaana ku soo gabagabeynaya. Dhammaantiin waa idin salaamay. Assalaamu calaykum.